Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaa soo koobaynaa musalsal Koreaan ah oo lagu magacaabo Switch Gamer, balse kahor intaan muuqaalka gudaha u galin waxaan ku xasuusinayaa muuqaalka inaad like noo saarto, qaybta commentina aad kusoo qorto muuqaalka xiga waxaa ka dhigayno. Musalsalkani waa ilaa iyo 3 season, maantana season koowaad ayaa soo koobaynaa. Seasonka ugu horeeya wuxuu ku bilaabanayaa atrishada, magaceeduna waa Arya. Waxay inoo sheegaysaa xilliga ay gobolka dhigan jirtay inay ahayd caan badan ay u yeeri jireen si ay xayeysiin ugu sameyso, laakiin waqti xaadirkan hoos u dhac ba'an ayaa ku yimid. Si ay nolosheeda u maareyso waxay soo saartay game cusub, balse waxay u baahan tahay dad maalgelin u sameeya. Iyadoo dhibaatadaas ku jirta waxaa lasoo hadlayaa ninka guriga ka kireeyey waxa uu u sheegayaa in bishii ugu dambeysay la joogo oo ay tahay kirada in ay bixiso, haddii kale guriga laga saari doono. Arya markaas ayay qorsheynaysay inay qofka la wadaagto guriga. Waxay wacday wiil ay hore u taqaanay oo la yiraahdo Yaan waxa uu ka shaqeynayay idaacad, wuxuuna shaqeeyaa habeenkii. Waa nin caan ah laakiin dadka badankood wejigiis ma arkaan. Yaan waa qof jecel nolosha sahlan, habeenkii keligiis ayuu guriga ku laabtaa. Hooyanimadii Yaan hooyadiis ayaa soo wacayso, waxayna u sheegaysaa qof cusub in gurigooda inuu soo degi rabo. Waxayna ku leedahay gabar, waana single, ayadana uma maleynayo dhibaato dhankeeda inuu ka imaan doono. Seasonka hamar ayuu isjarayaa. Waxaan arkaynaa Arya oo subaxdii soo toosaysa, waxayna arkaysaa inuusan wax dhar ugu jirin. Kadib asiga marka iyada aragtay aad bay isku naxaysaa. Haddaba waxaan oo dhan see ku dhicin dib u noqono. Hal maalin waxaan arkaynaa shalata Aryan iyadoo soo guuraysa. Dadku usoo rarayay lacag badan ayay ka dalbanayeen, balse iyada diyaar mu ahayn inay lacagta siiso. qaylada dhexdeed maraysa waxay ahayd mid diriska oo dhan ay kusoo baxeen. Ayagoo saas ku haystaan kadib Yaan ayaa imaaday. Hadalkeedana wuxuu ka fahmayaa Yaan inaysan lacag dhan haysanin. Kadibna waxa uu leeyahay aniga ayaa bixinayo. Arya intaas kadib waxay weydiinaysaa adi lacagta aad bixisid muxuumee yaa tahay adiga. Yaana wuxuu leeyahay gur cusub adig soo digaysa aniga leenahay lacagta horumariska bisha waa inaa kusoo dirtaa lacagta aniga hadda kaa bixiyey. Ayadana waxay leedahay aniga ma iga bix ku dhahay marka hore. Yaana asigoo xanaaqsan wejigeeda ayuu soo fiirinaya, wuuna yaabaya markuu wejigeeda arko. Waxaan u maleysaa in uu hore usiga u aqoon jiray. Aryana way ka shekeynaysaa, waxay dhehaysaa saan oo dhan maxaa u soo fiirinaysaa. Waxayna leedahay su'aal aan ku weydiiyey aniga hore ma ii taqaanay. Asagana waa inkiraya, wuxuu leeyahay aniga kuma aqaano. Kadib meesha ayuu iskaga soo tegayaa, gudaha ayuu soo gelayaa. Maalintii xigtay asagoo meel iska fadhiya qajaf ayuu maqlayaa. Dhinaca qajafta ayuuna soo aadayaa. Albaabka ayuu imaanayaa, wuxuu ogaanayaa in ay alaabta habaysanayso. Iyadu waxay leedahay gudaha soo gal. Yaan wuxuu leeyahay aniga inta waxaa u imaaday inaan wax kala saxiixano, yacni contracti intaa guri degnaaneed inaa ii saxiixdo. Aryan hadalka dhan ayay bedelaysaa, waxay leedahay iskuulaj ayaan ahaan jirnay, miyaa xasuusata aniga. Hooyada xilliga aan la hadlayay ayay ii sheegtay. Yaana wuu dareemayaa sababta iyada hadalka ay u bedelayso. Intaas kadib waxay leedahay lacagta waa ku siinayaa keliya hal maalin keliya si. Kadib waxay leedahay dadkii guuleystay jaamacaddu isku imaanayaan meel, adigu ma kasoo qayb galaysaa. Yaana wuxuu leeyahay haa sabab aniga waan aadayaa. Dabcan aniga xataa meesha waa layga wacay. Waxaan arkaynaa ardayda oo dhan oo meesha isku wareysanaya. Hal mar indhaha ardayda oo dhan waxaa xadaya Arya maadaama ay soo xirtay dhar qurux badan. Kadibna waa ay soo dhaweeyeen, kaamiramaanayaasha oo dhanna sawir ayay ku wadeen. Kadib dadka ayaa bilaabaya inay ayada ka faaloodaan maadaama ay ahaan jirta caan xilligeedii waxbarashada. Intaas kadib Arya waxay u tagaysaa London waxay ka mid ahayd dadyowga maalgashatada. Sababta ugu weyn Arya inta u maateen waa sababtaas, maadaama ay doonaysa gamekeeda in loo maalgeliyo. Aryana waxay bilaabaysaa inay u sharaxdo qaabka gameka, waxayna leedahay gameka waxaa ka baranaysaa boyfriendkaada qaabka loo hadli laheede. ayadana waxay leedahay boyfriend san haddaa ugu faaloon kartid, boyfriend qurux badan maxaad u samaysan waysay. kadib hal mar waxaa arkaynaa Aryan oo libisan oo soo galaya xafladda. kadibna Arya ayuu message u dirayaa, ayaduna waa iska indhatiraysaa. waxayna la sii hadlaysaa Londana su'aal ayay weydiinaysaa. waxayna leedahay boyfriend ma samaysatay mise weli single ayaa tahay. Arya ayadana waxay ku jawaabtay ayay la-eed, halka dhinac kaliyaan oo dhinaceeda soo aadayo maadaama ay fariinta ay ka jawaab waasay. wuxuuna ku leeyahay waa maxay sababta aad messagega uu soo jawaab la'san tahay. ayadana waqtigaas ayay ka faa'iidaysanaysaa, waxay leedahay boyfriendkeyga waa kana iska barta. dadkana way la yaabayaan, waxay leeyihiin canugan ilaa intoo kaa yaryaa fiiri. ayadana waa isdifaacaysaa, waxayna leedahay wax walba jaceylka waa suurtagal. asiguna arrinta waa uu la fahmaya, wuxuu leeyahay girlfriendkeyga aad ayaa kuu jeclahay. gacanta ayay kasoo qabanaysa, gees ayayna ula soo baxaysaa. waxayna leedahay lacagtaada biri ayaan ku siinayaa. teeda kale waa maxay sababta meeshaan iga dhow imaatay. halka uu ayada ugu jawaabi lahaa, asigana wuxuu weydiinayaa su'aal ah intee ka keentay dharkan qaaliga ah lacagta aad kusoo gadatay. wax yar ka hor lacag maydan haysanine. Aryana waxay leedahay sanadkan qof walba ayuu ku socdaa, teeda kale waa kiro. teeda kale waxaa doonaya dadka inay ii maalgeliyaan gamekeyga, adiguna arrinkaa iga carqaladeen. waxayna leedahay meeshaad ii taagnaaw. Nowlan ayay dib ugu noqonaysaa, laakiin markaan wejiga ay u bedelinaysaa maadaama ay company ay ka shaqeyso uu yahay mid hoostaga Arya. waxayna leedahay arrimaha shaqada mar kale ayaan ka wada hadlaynaa, hadda keliya aan wada raaxaysano. kadib meesha ayay ka tagaysaa. Arya iyadoo kale tag isdhehaysa lugta ayay u baxayso, wayna kufaysaa. dadkoo dhan ayaga ayay soo wada fiirinayaan, garabna ma siinayaan. Yaana asigana waa is celin waanaya, dhankeeda ayuu soo aadaya, laakiin gabar ayaa ka soo hormaraysa meesha, waana Arya saaxiibteeda dhabta ah, waxaana lagu magacaabaa Miin ayadana waxay bilaabaysaa dadkoo dhan inay ku qayliso. kadibna Arya ayaa meesha ka wadaysaa. waxaan ogaanaynaa Miin inay ku maqneed dhankaas iyo Paris, haddana saaxiibteed si surprise inay u imaata ayay doonaysay, laakiin midaas way u suurtagal weysay. laakiin ugu dambeyn waxay ku leedahay Arya boy qurux badan ayaa samaysay. kadib Arya xaqiiqada ayay u sheegaysaa, waxayna leedahay aniga boyfriendkey ma ahan. Miinna waxay leedahay boyfriendkeyga ayaa banaanka ugu sugayo, mar kale ayaan sheekeysanaynaa. Arya kadib waa iska soo baxaysaa si ay wax u cabto. nafsadeeda ayaa eedeynaysaa maadaama ay horumar aysan gaarin. waxyar kadibna meesha ayadii joogto waxay imaanayaan, ayadana waxay isku dayaysaa inay dib marta ay xaafad aado, laakiin mar kale waqti ayaa u baxayso.
Yaana waa uu qabanaya sidoo kalena waxa uu siinaya kabo. Aryana waxay leedahay sidaan oo dhan maxaad u caawinaysaa tiyada kale waxaad u qalantaa cabitaan ayadoo gad rabta ayaa waxay ogaanaysaa inaysan haysanin lacag badan. Intaas kadib Yaan ayaa lacagta bixinayo. Aryana su'aal ayay weydiinaysaa iyadoo cabsan waxayna leedahay saan oo dhan maxaad u aamusantaa maad hadashid. Asagana intuusan u jawaabinba way ka dhacaysaa ayaduna way seexanaysaa. Kadibna Yaan ayaan arkaynaa asigoo dhinaca xaafadda soo wado wuxuuna weydiinayaa qolka baasweerkiisa ayaduna maadaama ay cabsaneed baasweerka oo dhan ma aysan garanayn baasweerkasi uu khaldayana ugu dambeyn gurigoo dhan wuu isxirayaa. Yaana banaanka ayuu uga dagwaanaya kadib xaafadiis ayuu usoo wadayaa. Aryana xaafadda zaaid ayay ugu dheedheelaysaa. Yaana wuxuu gaaraya ilaa heer oo dhaho qoftan xaafadda maxaad u keensatay ayaduna sida usoo ordays kor ayay soo aadaysaa. Waxayna leedahay waxaa lee sheegay in magaaladan ay rayada ku rumowdo laakiin imaad ilaa had wax ii rumooway ma jiro laakiin waa ogaan naftirkii dadaal in laga rabo laakiin qof i caawi inaa helo waa ii muhiim. Intay intaas daldalaysa iyadu waa ay dhici rabtay laakiin Yaan ayaa qabanayo laakiin asiga naftirkiis lug ayaa usii baxaysa labadoodna waa isla dhacayaan. sidaana waxaa ku dhalanaya shil yar oo accident ah. Yaana wuxuu soo xasuusanaya xilligii kulaadka iyo maalintii ugu horeysay oo isaga arkayay. Aryana markale waxay bilaabaysaa inay asiga shumiso. Yaana asiga arrinta inay sii socto ma uusan doonayn wuu soo xambaaraya gudaha ayuuna soo gelinaya. Ayadana waxay bilaabaysaa meeshuu gahey inay kasoo tagto oo agtiisa ay soo seexato laakiin habeenkii oo dhan waa mataqaysay maadaama khamriga ay cadday ay usmowday. asigana markaa wuxuu ku qasbanaaday meel walba ay ku mataqday inuu nadiifiyo. subaxdii xigta ayaa arkayna Aryan iyadoo hurdada kasoo toostay. Yaana wuxuu sheegayaa sidaan wax sii soconaysa ma ahan gurigeyga nusqaan badan ayaa u gaarsiisay oo uuna soo wadaya waxa uu keenaya dabaqeeda sare soo utasoo dabaqa meelaha ka jibisay lacagtoo dhan ayuu u sheegaya iyada laakiin Aryan waxay leedahay waxaasoo dhan adigaa sameynin aniga lacagtaas oo idil ma haysto. asigana wuxuu ku leeyahay lacagta kirada markaa bixinaysa lacagahaasoo dhan isku soo dardar. kadibna halkii ayuu ugu tagayaa. kadib Aryan qolkeeda ayay ku ordaysaa aadna ayayna u xishoonaysay. habeenka ayaa la gaaraya Yaan ayaana arkaynaa asigana wuxuu isku diyaarin lahaa sidoo ayada uu kulmi lahaa sidoo kale wuxuu baraatigaynayay sida uu ula hadli lahaa laakiin Aryan waxay dhegaysanaysay asiga bororkaasigiisa samiicad waa ay dheereysneed. asigana asoo xanaaqsan dhinaceeda ayuu soo aadaya wuxuuna leeyahay kheyrta kugu dhegan ayaa deganaa diriska ayaan ahay sidaas darteedna waa inaad taxlisaa dhageysa adiga hadaad doonayso laakiin ugu yaraan waa inaa gaabisaa. Aryana waxay leedahay qofka codkan iskale saad ayana u jeclahay anigana xamaasad ayaa iqaaday sidaas darteed ayaa u deerayay garaan noqo. marka maalintii xigta aana waxay la kulmaysaa saaxiibkeeda asigana wuxuu ku leeyahay qofna maalgeliya waa inaan raasano laakiin waxaa loo baahan yahay xayisiin ugu horeen inaan sameyno ani arrinkaas waa ka baaran degi qof codkiisa zaaid qurux badan yahay waa inaan raadinaa. Aryana waxay leedahay qofka xayisiintan uu sameynaya codkiis waa inuu qurux badnaadaa. asigana markaas kadib codka ayuu maqashiinayaa ayadana way ka helaysaa wuxuuna leeyahay biri ayaa la kulmaynaa sidaas darteed isoo diyaari. subaxdii kale Aryan saaxiibkeeda ayaa soo wacay asigana waxa uu ku leeyahay sida u dhaqsiyaha badan imow. ayadana waxay ku leedahay meesha ku balansaneen waa joogaa waxyar isukor ayaa soo koraya. intaysan kor soo fuulin waxay isku fiirinaysaa gaari ag yaalay waxayna leedahay ninkan codkiisa waa qurux badan yahay laleeyahay soo ekaan doonaa. goobta ay iska ay dhaqaaqaysaa waxaan arkaynaa gaarigaas inuu dhex jiro Yaan. kadib saaxiibkeeda ayay u imaanaysaa asigana wuxuu leeyahay qofka xayisiintan uu sameyn lahaa waa uu soo daahay sidaas daraaddeed waa inaa sugnaa. waxyar kadib Yaan ayaa goobta imaanaya iyadana way la yaabaysaa waxayna leedahay sidee. asagana wuxuu u sheegayaa qofkay taageerta inuusan qof kale ahayn oo asaga yahay uuna aad ugu faraxsan yahay maadaama asaga ay taageerto. Aryana saaxiibkeed ay gees ula soo bixaysaa waxayna leedahay kan sidee u wici kartaa anaa aqaan xaasida ugu yahay deeda kale deen ayuu ugu leeyahay deenta ma ugu sii badanaya adiga. deeda kale saaxiibkeed ayaa wuxuu u sheegaya application inay macquul tahay inuu la kaco maadaama codku caan yahay. Aryan intaas kadib waa ay ogolaanaysaa gudaha ayaan la soo galaya. kadibna Yaan wuxuu bilaabaya inuu fiiriyo kontraktiyada iyo dialogyada asigana wuxuu leeyahay dialogyadan dialogyo soconaya ma ahan. ayadana waxay leedahay waxaa kasoo qoray buugaagta aad jeceshahay. kadib asigana wuxuu weydiinayaa buuga noocyada uu jecel yahay kadib buug ayay u sheegaysaa laakiin asiga wuxuu u jawaabayaa buugaas inuu yahay buugaas uu neceb yahay. intaas kadib go-aan waxaa lagu gaaraya in dialogyada la bedelo. kadib xaafad dib markay uu soo noqonaysa asiga ayaa gaarigiis dib ugu soo qaadayo. intay wadada marayeen ayada waxay isku dayaysaa inay la sheegaysato balse asi darawalnimadiisa ayuu ku mashquulsanaa. Aryana guri markay imaato ugu dambeyn waxay bilaabaysaa wax ku saabsan inay baarto iyo waxyaabo uu jecel yahay. saaxiibkeeda ana ayaa soo wacay wuxuuna leeyahay broadcastkiisa dhageyso sidoo kalena dialogyada bedel. ayadana hay ayay leedahay ayadana halkaas ay ka bilaabaysaa dialogyo cusub inay meesha ka sameyso. ayadoo howsheed ku jirta ayaa waxay ogaanaysaa nooca cuntada. ayadana habeenkii o dhan waxay ku mashquulsaneed inay kariso nooca cuntada uu jecel yahay. Yaana ayaan arkayna asigana wuxuu ku riyoonayay waxyaabihii ku dhici jiray markuu yaraa. waxaan ogaanaynaa aabihiis mar walba in hooyadiis uu garaaci jiray hooyadiisna asiga ay dhagaha airpods u gelin jirtay si ugu yaraan markoo ayada la garaacaya asiga u maqlin. waxaana la gaarayaa subaxdii waxaana albaab kusoo gargaraacay Arya waxayna ku leedahay waxa kuu soo diyaariya cuntada aad jecleed script cusubna waa kuu soo qoray dialogyo qurux badan waa kuu hayaa cuntadaada soo cun sida uu dhaqsiyaha badanna issoo diyaari. asiga cuntada intuu cunaya ceeri inay tahay uu dareemayay asigana uu issoo diyaarinaya labadoodna way issoo raacayaan laakiin Arya waxay leedahay maanta gaariga ayaa wadayo asigana gaari ayuu la soo raacaya airpod ayuu dhagaha gashanaya si uu u seexdo. ayadana waa ay ka diidaysaa waxayna leedahay earphone ma xirin kartid aniga ayaa ii sheekeynaysaa hadal ayayna u bilaabaysaa si u sheekeynayso asiga waa uu seexanayaa. ayadana asiga barkin ayay u gelinaysaa. Yaan asigana arrintan layaab ayayna noqonaysaa asigoona weligiis earphone xirnin oosan wax dhegeysanin weligiis ma uusan hurdi jirin. intaas kadibna waxaa arkaynaa stuudio oo kasoo baxay nin kaloo caan ah oo codeeye ah. Aryana waxay u sheegaysaa inay asiga taageerto laakiin mar walba isku daydo inay asiga la hadasho. Yaan ayaa kala dhexgalayay kadib asigana uu iska baxayaa. Aryana waxay bilaabaysaa inay macsalaamayso asiga. intaas kadib asiga wuxuu qaadanaya scriptii iyo dialogyada stuudio ayuu gudaha u galayaa laakiin si wacan codku waa u duubaanaya. ninka stuudio laana wuxuu u sheegayaa in laga yaabo cunto badan asiga inuu soo cunay. Aryana waxay leedahay aniga ayaa xalinaya arrinkaas. Aryana asiga ayay u imaanaysa waxayna siinaysaa macmacaan
macmacaan khaas ah, laakiin asiga wuxuu leeyahay macmacaanka ma wanaagsano. Ugu dambeyn way qancinaysaa inuu cuno macmacaankaas. Kadib waxaa arkaynaa asiga inuu si fiican wax u duubayo. Banaanka marka uu soo baxay ninka istuudi lahaa ayaa la hadlayo, wuxuuna leeyahay aniga marka wax iduub ku dhaw si fiican wax ma ugu duubtide, gabartan darteed ma waxaan oo dhan u samaynaysaa. asagana uma jawaabayo. Aryana dib markay guriga uu soo noqotay asiga ayay ka fikiraysay. saaxiibkeeda ayaana soo wacay, wuxuuna u sheegaya si asiga u fahantid waa inaa podcastkiisa sii dhegeysataa. ayadana waxay leedahay waxbaa ka cabsan, hadda ayaanba dhegeysanayay. yaani asigana wuxuu isweydiinaya ayada inay tahay single iyo in kale. kadibna asigana wuxuu tagaya about profilkeeda, wuxuuna halkaas ka ogaanaya inay single tahay. aad ayuuna dhoola cadeynaya. ayadana waxay dhegeysanaysay waxyaabay asiga ku saabsanaa, laakiin waxay maqlaysaa muusiga asiga dhinaciis ka imaanayo. ayadana asigana qolkiis ayay usoo ordaysaa, waxay leedahay muusigan adiga ma garaacayo. asagana wuxuu leeyahay waana muusig ii gaar ah. ayadana waxay leedahay muusigan hadaa u isticmaala gamekeyga ka waran, markaas adiga sheer ayaana la yeelanaysaa maadaama codkaada iyo muusigaada aan isticmaalnay. intaas kadib asiga waa uu qoslaya, wuxuuna dhahaya waan ka firaya arrinkaas. halka Aryan isku dayaysay ugu yaraan inay ka dhaadhiciso asaga ay gudaha usoo gasho qolka, laakiin asiga wuu celinaya. labadoodna saaid ayay iskaga soo agdhowaanayaan. yaani asigana albaabkiis ayuu xirinaya, wuxuu leeyahay haween wanaagsan. qolka dib marka uu sii noqdo habeenta muusiga ayuu bilaabaya, wuxuuna ka dhigayaa mid ka hore kasii qurux badan. habeenkoo dhan ayuu ku dhafrayaa. ugu dambeynna Aryan ayuu u dirayaa. Aryanna markay soo toostay ay arkaysaa aadna ayayna ugu farxaysaa. ayadana way soo baxaysaa, banaanka ayayna soo aadaysay. yaan oo gaarigii soo baxsaday ayaana soo agsaagayo, wuxuuna leeyahay aniga naftirkii banaanka ayaa u socdaa, hore aa kuusii dhaweeya soobay. markaas kadibna hore ayay usii raacaysaa. asigoo hordeysan ayay gaarigii soo raacaysaa. labadood waa ay sheekaysanayeen, laakiin asiga wuxuu bilaabay inuu hadal ka gaabiyo. Aryana waxay leedahay habeenkii 5 saac ayaa soo deysaa barnaamijkaada broadcastiga ah, anigana asiga ayaa ku dhafraa ka waran haddaa soo hormariso. waxaana jir kardiyo fara badan oo sidood oo kale ah. yaani wuxuu leeyahay midaas zaaid ayuu adag tahay, laakiin waa ka fikiraya. Arya iyada xafiiskeed ayay tagaysaa. saaxiibkeeda Haanna wuxuu leeyahay hooyadeeda iyo Isabel ayaa dib u soo noqdeen, bal ka waran haddii aan dhahana la maalgeli. markii hore waa ay diiday, laakiin markan waxaa laga yaabaa inay ogolaato. Arya adina arrinkaas way ku dhiirigelinaysaa, waxayna dhahaysaa utag hooyadeeda ee naga soo saxiix. isagana habeenkii hooyadiis ayuu meel maqaayad usoo wadayaa, wuxuuna bilaabayaa hadallo qurux badan inuu isaga iyada kula hadlo, cuntooyinna oo uu siiyo. meeshaasna waxaa joogta saaxiibta Aryan oo lagu magacaabo Miin, waxayna arkaysaa Haan oo hooyadiis hoosta ka galaayo. ayadana waxay is leedahay ugu yaraan duqdo waa uu gaadi raba asiga. ugu dambeynta hooyadiis arrinka way ogolaanaysaa, waxayna leedahay beriga soo doono, laakiin Miin ayaa soo dhexgalayso. waxayna leedahay ugu yaraan qofka hadduu u weynaado waa inuu culeyskiis dadka dulqaadaa, waa aadna weynaatee ma loo baahan inuu qof lacag ku siiyo. hooyadiis ayaan la hadlaysa, waxay leedahay qofka da'daadaasi oo fikiraysa fiiri. kadibna waa ay ku boodaysaa, waxayna leedahay wax lacag ah ku haay ma lahan. halkaasna waa iska degaysaa. asagana Miin ayuu ku xanaaqayaa. meeshan ayadana waxay ku sugaysay boyfriendigeeda. ugu dambeyn asagana wuu imaanayaa. kii Haan ahaana kursi ayuu soo jiidinaya, agtooda ayuuna imaanayaa. sheekadu meel fiican markay u maraysa waa uu soo dhexgalayaa, wuxuuna leeyahay naagtaa shukaasanaysa ayada ur ayay leedahay. halka Miinna ayadana caddeyn arrinkaas inay u keen waanayso. kadibna boyfriendgeeda halkaas ayuu u tagayaa. Miinna ayadoo xanaaqsan saaxiibteeda Arya ayay u tagaysaa, waxayna bilaabaysaa Haan inay cayso. waxayna dhahaysaa boyfriendge ay ugu diray, waxayna leedahay hataa asiga aaqabta ma dhaafi doono. Aryana waxay bilaabaysaa arrintii o dhan inay u gediso, waxayna bilaabaysaa inay ku qalqaaliso inay tiimkeeda kusoo biirto, yacni game samaynta. Miinna waxay leedahay kombiyuutarradkan iyo geemamka la sameynaya aniga kuma fiicni. Aryana waxay leedahay waqti xaadirkan boyfriendkaada uu kaa tagay, laakiin haddaa shaqadeena kusoo biirto wiilka madaxda ah oo la yiraahdayaan inaa isaga iyada ka heli doonto. Miinna waxay leedahay aniga arrintaas aniga waa ka fikirayaa. Aryana habeenka dib markay guriga ugu soo noqoto waxay dhegeysanaysay bordhakastiga yaani asigana bordhakastigiisa markuu dhameynaya wuxuu leeyahay dadka haddee rabaa inay ciyoob seexdaan aniga bordhakastiga waa soo horumarinayaa, ana lasoo codeeyo inaan 4 saac habeenimo ka dhigaayo. Aryana iyadana fariin qoraalle mahadcelin ayay u diraysaa. halka dhinaca kalena Yaan oo u sheegayo inay soo codeyso. maalinta xigta ayaa arkaynaa Arya iyo Yaan ayaa isla kulmayaan, wayna is soo raacayaan, waxayna la kulmayaan qofkii u maalgelin lahaa geemkooda. ninka u maalgelin lahaa geemkooda waxaa la yiraahdaa Dewon. xafiiskiisa ayayna ugu imaanayaan. Dewon asagana gacanta Arya ayaa si khaldan u qabsanaya, isla markiiba waxaa kala wareejinayo Yaan maadaama uu arrinkaas u begi waayey. kadib Mr. Won Arya wuxuu weydiinayaa waa kuma ninkan. Aryana waxay u sheegaysaa inuu yahay muusigiisaha iyo codbixiyaha geemkan. Mr. Won wuxuu leeyahay aad ayaan uga helay maadaama yaraantahay sidaan ugu shaqaysanayso. kadibna wuxuu leeyahay geemkiin waxyaabihii ku saabsan yahay iyo sharaxa. Aryana waxay bilaabaysaa inay u sharaxdo, waxayna leedahay geemkiina waxaa la dhahaa dunida sabrashada. markay dhammaysana ayada way soo fadhiisanaysaa. Mr. Won dhankeeda ayuu usoo sikanayaa ugu yaraan soo ugu soo agdhowaado. Aryana waxay isku dayaysa marka dambaysa inay kasii dheeraato. ugu dambeyn Mr. Won wuxuu leeyahay geemkiin inaa maalgeliya diyaar ayaan u ahay, wada shaqayn fiicanna wayn dhex mar doontaa. Arya iyo asxaabteeda dhanna way kala tagayaan. markay dambe ay soo laabanayeen ayada iyo Yaan xoogaa asiga waa u murugeysnaa. Aryana waxay leedahay sababta u murugeysantaha maxaa waaye. asigana wuxuu leeyahay Mr. Won inuu ku maalgeliyo muhiimiya, si uu dhaqmayo ayaa ujeeda asiga qof wanaagsan u eeko. Arya iyadana markaas way ka diidaysaa, wuxuuna egjahay bay leedahay qof wanaagsan, waxayna leedahay geemkeena dhan ayuu noo maalgelinayaa. Yaan wuxuu leeyahay lacagta sidaan dhan muhiim uma ahan, teeda kale waxaa moodaa adiga oo dhan inaa isbedeshay, adiga baryihii hore sidaan oo dhan ma ahaan jirin. su-aal ayay weydiinaysaa, adiga waxay leedahay hore ma ii taqaanay. xalaqadeena koowaadna meeshaas ayay ku dhammaanaysaa. seasonka labaadna wax yar kadib waa soo dhigi doonaa insha Allah.